imankana waxaan qabanayaa si uu leeyahay nin la odhan jiray abyan maxamed cawad maxamed guuleed oo xasan daahira oo jamhuuradii nairobi ka geli jiray ah oo maxaruf ah waayahay ninkaas waxay kulmeen edan waktiyada ka mid ahaa nin dhulbaantoo reer habara oo inaanu dhashay iyada oo magaal qayb ka mida iyo cayn labadaa habar jeero iyo dhulbahanta isku garbinayaan ciidankii ingiriiska u sameeyey dalka ayaa inankaasi adyan u yimi oo wuxuu yidhi adyanow abtii waxaan doorayaa muquunan kaa doorayaa taas oo aan dalcaynaan dhoofo oo dhulkii qabto waayo cayn baa habar jeero iyo dhulbahante isku hayaan ama dagaal baaba laga filayaa qorigaa fiisanayaa markii qorigaa fiisanaya waayahay lacagtu waa intay markii uu u sheegay wili bal boqolkaa shilan qaado oo magaalada ay markaa joogaan mooyaane mid kale oo ka gedisan ayuu taa iyo waktigaa horan ahaato magaalada uu kula balamayaana aroos baa lagu leeyahay lacagtiibuu soo qaaday inankiibuu arooskii ku hor fariistay waayahay wuxuu yidhi abya maxamed waqtiga gabayga waa la ogyahay waana mariyaa oo doolaan ragiga maarmin iyo madasha loo yeedhiyo miidaan haddii aan fadhiyo maasha laga dhuqo mayn kuma dhex aatee bal ragiga waa mataniyaa mataatay sidii may dhambaal midibna geeyaana afartaa intaan miinka dayay maalad ma u yeed musad lagu dhawaaqiyo xariif hoomaqanadii makamariyo goolqaas intaan xaraf ka miisaayo irka oo milshiga soo galay oo maalka ka hillaacay umay difaaco iyo daruur maanshad soo eliyey ama gurug masiiraha tulkadii qole ku meestaayo ama faras maqaanada miyaan muusay aragtiisa waxaan ahay manshuud lagu hirtaa maalintii baane daboolkii isaaqdaanahay iyo midade manta samata iyo ciida gale arabka milqa maroodiga ismaaciil cafe iyo niida habaryo sacad muusahaan lagu murtamin maahirada ciise abjaalaha milyoonkaa haddaan dayro maqashiiyo milatariga oo gale haddaan bari ka soo mooso aan weliba mudankii ahay iyo marsalkii jaans macbuudkaan ku dhaartay iyo ilaahii maaliga ahaaye ismamilo daraaddeed haddaanaan idinku muunaynin ninkii baydin boobiyo dilbaa mudan lahaydeer wediga basiiraa ku furay madaxii yaayiil maxdaa tannood kaga caday iyo miiradii harada annagoo ka maqan baa biyaa miran taqaaniin dalkiiyaan milkiyey seerahaad maqashay waa beene arti hadalka kaan meel marayn waa maxaalnee mermeer ku daafsada dilkilayda maganey inankii lacagtii intii hadhayduu siiyey wuxuu yidhi doos abtii ruuxii qabo dagaalkan waayahay muddo haddii ka soo wareegtay ayaa inankii la kulmay haddana dhaweydba dhaweyd waayo abyan maxamed wuxuu dhintay dhowr iyo sideetankiibuu dhintay marco waayo amrigiisu indoora buu gaaray intii afyalaba qabsadayuu garigaa mariyey wuxuu maantana intii afyalanayay tixdan buu ka mariyey oo aanan wada haynin wuxuu yidhi dhibka naarta iyo weyla way isugu tayaaqlaane tijaal baa idinka ah kolkay taawasaan qarane toorkii ogaadeen kolkay idin tagliifa iyo toban xijoobiyo kolkuu tago gabdhiid ruxsad kismadaad lahayd iyo kolkuu xarin baqaataaday intabaadiyuu idinka dhigay kaarigaysaada anagoo idinkaban taabinay oo idinma tuurayna hormadii kale maalintii ay timi haddaan laayo maantaba si sooraa tarmay iyo tani ma joogteen halkaa keedaa wuxuu ila niyeelay in cabdulla xasan weeye toorkaa ogaadeen waayo waa kii markii ay sidanu shaqada ku hayno dardaranuu kasoo degay waa kii isaaq weeriyey ogaadeenna waa kii dabada kaga soo dhacay ma jeesteen markuu basaalihiisii maqlay buu jiri halkaan soo dhaafay dhulbahantana dhaxalkiisii wuxuu noqday haaway iyo dadgalabto maanta dhindheyda kama foga sida muuqanaysa cabdulla xasan dhulbahanta camalku xaguuka galo shalaya maxamed saalax baa